kelmadeyda farmaajo waxaan dib ugu dhiganayaa maalinka 19 ee jimcaha ee la isku tagi doono daljirka daahsoon banaanbaxa lagu soo celinayo dimuqraadiyadda iyo sharcigu inuu taliyo si farmaajo meelaan ka fogeyn filla Soomaaliya oo islaana adoo daaqadiisa furto codkiina waa ka maqli karaa aan codkanaga uga baahinay insha Allah wadiyaleega waxaan rabaa marka halkaan inaan saddex fariimood oo kooban ka dhiibto tan koobaad waxay tahay banaanbaxa waa xaq dastuuriya oo dastuurka qodobkiisa 20aad kafaalo qaaday umana baahnidin inaad fasax u soo qaadatiin waxaan idinku dhiirigelinaa runtii sidaad isku soo abaabusheen maalinka jimcaha 19 bishan inaan si wada jira uga soo muuqano goobtaas insha Allah hadii alla yiraahdo ayaga yiraahdeen waa buurti Uxud annaguna waa buurti Uxud oo leenahay farmaajo maalinka sharciyada lagu soo celinay oo diktatoriyada dalkan oo ku hayo looga suulinay nidaamka iyo sharciga iyo dimuqraadiyadda kala dambeeytuna ay ku shaqeynayeen insha Allah hadii alla yiraahdo qodobka labaad wuxuu arinta ku saabsan ciidamada sida dastuurka qodobkiisa 124 uu qeexay ciidamadu waxay u xil saaran yihiin dhowrista shuruucda dalka ilaalinta dastuurka iyo sidoo kale inay dhexdhexaad ka noqdaan siyaasadda oo siyaasadda aysan ku milin nimanka saraakiisha ciidamada hogaaminaya waxaan u sheegaynaa fal dambiyeed kasta ay la yimaadaan sharciga ayaa ku ciqaabi doona farmaajana kama difaaci doona berito cadaaladda waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan amarada qaldan ee la siinayo oo aysan dalka iyo dadka qalalaasa u horseedin lagumana dhaafi doono insha Allah waday sharciga ku tuntaan xuquuqda dadka u soo banaan baxay inay fikirkooda cabiraanna dhibaato ay gaarsiiyaan laguma dhaafi doono insha Allah waxaan arkay qolaha wasiirada iyo taliyaal ciidamada isku jiro COVID-19 la iskuma imaan karo la iskuma soo bixi karo anigu ma aqaan COVID-19 wax taliyaha booliska iyo militariga iyo nabadgelyada ka qusay inay shirjara inta ka qabtaan yiraahdaan COVID-19 ajir wax ka qusay aniga ma fahmin laakiin waa dhaqan xumada hadda la barto farmaajo dowladda hubiye waan uga digaynaa markaa qolada la socota farmaajo nin reemuduga dadkor waxa la yiri baabuur soo raacay sida caadada marka baabuurta la raaco marka busteejo kasta la marayo ama magaalo kasta la marayo waa la sheegaa waxa la yiraahdaa meel hebel ayaa la joogaa si dadka meeshaas ugu socdo dadka qaarkood inay saxdaan dhici kartee aysan ugu habsaamin oo maalinkaas ay u degaan nin reemuduga marka baabuur soo raacay cabaar ma baabuurkii soo socday ayaa nin krishwayga wuxuu yiri la yiraahdaa qabuuraha barakaad hayna degtali abaar gaariga markuu socdo hadana waxa la yiri qabuuraha Salahuddin markaas baabuurkii ka boodaan waa carrama waa laga daba orday waa la soo qabtay xal yar maxaa kugu dhac war gaariga aan aqar u socdaa ka daguul nimankan wareersan oo haysta farmaajo inuu wali nool yahay waxaan leenahay gaariga farmaajo aqar oo tagay walaalayaal meel dambe u sii socotaan idin ma arin baabuurkan ka soo haray dalkiina iyo dadkiina wax la qabtiin wax dhibaato ah oo jira lama arko farmaajana dadkaan waa naceen Soomaalina waa nacday soona laaba ma insha Allah wadii alla yiraahdo dadkiina wax la qabtiin walaalayaal oo soo dhawaada xilal daartiin kuwa soo socda la idin siina dad xataa kuwa lagu sharaxantiin anaga idin soo dhaweynayna dalkaan iyo dadkaan badbaadi u baahan yihiin ummadaan ninkaan intaan ka badan ugu madulay kare ka soo haran leenahay baskaan aqra u socda aad iyo aad u mahadsantiin